سمكوار سري عالم كاسولان بيليدو كيسا سمكواريو iyo bogadi sugan hambalyo suban ku salaale samakuwar hambalyo suban ku salaale samakuwar geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Somaliland geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Somaliland iskooda dhowrsan kugu salaame samakuwar iskooda dhowrsan kugu salaame samakuwar guur sidee xambaarsan soo noqoshadiisa soonidu mutaystay dastuurka kugu salaane midnimo walaalnimo gobonimo midnimo walaalnimo gobonimo islaamnimo kugu salaane samo samiyo islaamnimo kugu salaane samo samiyo samakuwar 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنو هالكان هودا كسو دوينينا دمان walaalaha ku xidhan programkeena adkaynta qaranimada oo mar walba uu idin soo jeediyo ururka adkaynta Clan Patriots Appeal programka caawa waa program aad u xiiso badan waxa ila daadahaynaya programka walaalkay Iid Xasan aw Muuse waxa programka marti ku ah walaal Faarax programka mawduuciisa intaynaan u guda gelin waxaan jecelahay walaalahayga programka caawa igulina soo dhaweeyo sidaas dhammaan walaalaha programka ku xidhan ee hawada nagala socda salaamu calaykum waraxmatullaahi Iid Xasan Aasiya Faarax soo dhawaada dhammaan وعندونهاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسيا وين سود ويننا iyo dadkayna daawanaya halkan inagala socdo dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa walaalaha soo galaya programka ee hawada nagala socda mar walba programka iyaga taageerada iyo commentska iyo hadallada dhiirigelinta noo soo dira programka caawa waxa aanu kaga hadli doonaa walaasheen Aasiya Faarax oo Somaliland booqasho ku tagtay dalkeena qaaliga ah iyo wixii ay waxay ku soo aragtay iyo waxyaabo badan oo runtii yididiile iyo magaranaysa niyad magaran oo wanaagsan oo waxyaabo kale oo aynu u baahanay inay wax laga qabtaba haddaba programka caawa waxaanu ula baxnay socdaalkii samarka iyo Somaliland walaashay Aasiya soo dhawow salaamu calaykum mar labaad walaalo walaal dalxiis baad ugu tagtay dalkeena macaana Somaliland marka walaal waxbaad ku soo aragtay badan insha Allah waad noo warrami doontaa ilaahay hadduu qadaro waan ku soo dhaweynaya horta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashay Muna Xasan walaalkay Iid Xasan aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad ii casunteen barnaamijka igu soo dhaweyseen barnaamijkan oo barnaamij qaali ah xoojinta qarannimadeena Somaliland halgeesigeeyagina uu ku jiro Iid aad iyo aad baan u salaamayaa
وهليي سوماليلاندرا وهالكا سو غارسيي سوماليلاند ويست لندن كوميونتي xubnihii weeyaan asaasay nagu qadariyay London walaalkay iyo munaba waxaan leeyahay jisaakumal khayr sidaad ugu taagantihiin qarannimada iyo wadankeenu inuu noqdo mid taaba gala oo guushii uu doonayay uu gaaro sidaa walaashay u sheegtay haddii aan ka warramo socdaalkaygii wuxuu ahaa socdaal qiimo badan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inuu jaaniska ay siiyey in aan mar labaad iyo mar saddexaadba aan wadankii hooyo anoo muddo badan qaxooti ku ahaa wadankan inaan wadankaygii tago oon soo arko nolosha dadkaygii iyo dalkaygiiba uu ku jiro nasiib wanaag sanadkan 2018 wuxuu ahaa wadanku barwaaqo sidaad loo wada soconno waxayna soo martay abaar aad u xun 16 iyo 17kiiba oo dad iyo dunyaba inaga laysay laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa mahadda leh maanta wuxuu ahaa wadankii barwaaqo intii aan joognayna roob badan baa habeen walba oo mehigaana ayaa da'ayay dhulku wada green buu ahaa caaniyo xoolaba way buuxeen maasha allah nasiibka ilaahay baan uga mahadnaqayaa waxay ugu dambeysay wadanka 2015 waxaan maxay ahaydeenay aan ku soo arkay wadanka waa nimca taalo marka hore waxaan ku soo arkay nimcad badan waxaan ku soo arkay dadka oo ka faa'iideystay waqtigii nabadda ee ay ku jiraan muddada badan oo 30 sano ku dhow wax bartay cilmiga diinta haday noqoto cilmiga maxay ahaydeen kala haday noqoto in dadku wax barteen dadku inay yihiin dad aad u tabcanaya oo u shaqaysanaya dhulku inuu aad u kobcay oo caasimadu aad u kobcday especially oo ay xoog isku bedeshay waxaan kaloo soo arkay sixir barar badan oo jiray oo abaartii iyo dollarkuba uu keenay oo lala tacaalayo oo dadku la tacaalayaan waxaa kale oo jirta oo arkay baahi badan oo xagga shaqo la'aanta ah laakiinse dadku aad bay u dadaalayaan qof waliba aroortii intuu kaco wuxuu doonayaa inuu shaqo tago inuu wax qabto qof walbana kuwa uu ilaahay nasiibka u siiyey qof walba meheradiisa ayuu ku foofayaa wadanku guud ahaan wuxuu ku jiray barwaaqada alxamdulillah rabbil caalamiin waxyaalo badan oo baahiya oo naxdin lahina way taalay oo ay maxay haydeen ay ka mid tahay mid aynu inagu samaysanay iyo mid dabeecaduba samaysay waxaa jira wax badan oo aynu qaban kari lahayn oo la samayn kari lahaa laakiin aanaynu samaynin ayaan arko aad u dayacnaa waxaan arkay dadka oo samaystay guryo waaweyn oo aad u qurux badan laakiin aan lala xisaabtamaynin oo aad aragto in qofku uu albaabkiisa qurux badnaysiistay iyo guriga gudihiisa laakiin banaankiisa uu aad u dayacay wuxuu ka dhigay maxay ahaydeen dadka qaar waxay ku samaysteen jingado riyay ku dhaqeen caasimadda dhexdeeda waxay ku samaysteen maxay ahaydeen bulaacado waaweyn waxay ku samaysteen dhagax ay daadadka iskaga celinayaan taasi waxay kaliftay in aanu sooba geli kari weyna xaafadaha qaar oo tagaasidii awoodi kari waayaan inay galaan halkaasna waxaan ka arkay in uu jiro dawladda hoose in aanay shaqo badan ka qaban waddanka gudihiisa waxaan kaloon arkay in waqtigii hore
iyo 2015 waxaa jirtay wasaarado badan oo booqday oo dana badan oo xagga danta guud iyo mid gaaraba ay ga gashay waqti badan bay gaga lumayhayd wasaaradahaas 2015 waxaa for example wasiir haddaan la ballamay 8 waxaan ku galay 12 dirqi iminka wasaarado badan baan booqday wasaaradaha badan ee booqday waxaan ku arkay inay isbedel badan u jiray in wasiiraduhu ay shaqaynayaan 6 aroornimo wasiir baan la ballansanayn 7 wasiiro badan actually 7 oo waxaanu tagnay 20 la si aan isku habayno waan isweydiino waxaan isnida ama aynu iska soo kalahnay markaasaa waxaan dadkii dabadda joogay shaqaalihii baanu weydiinay waxay dhahan wasiirka already meeting buu ku jiraa 6 o'clock buu shaqadii soo galay halkaa waxaan ka arkay dowladda dhexe inay yar habaysnayd oo shaqaynaysay laakiin dowladda hoose ayaan anigu aasiya ahaan aan dhibta waddankii aan ku soo arkay aan u tirinayaa laakiin wax badan baa jira oo dadku dhalinyaradu aad bay wax u barteen aad bay u shaqeeyay doonayaan inay u shaqaystaan waxaad arkaysaa dadku halkaa haddaan kugu yara hakiyo walaalo waxaad noo qaar oo aad moodid inay dayac ka jiro xagga dowladda hoose laakiin waxaad inoo sheegtay inaad isbeddel ku aragtay wasaaradaha xagga wasaaradaha oo laga yaabaa xilligii horead aragtay inay dowladdii hore ahayd baa laga yaabaa iyo dowladdan labada goor ee aad tidhi wasaarado ayaan u baahday farqiga u dhaxeeya shaqadooda ma noo kala saari kartaa walaalo ma noogu celin kartaa intaa waayo waxa fiican marar badan baynu programkan dowladda wax u sheegnaa amba canaananaa amba magaranaysaa dhaliilnaa marka waxa wacan waxa fiicanna in loo sheego oo yacni la muujiyo run ahaantii waayo man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah yacni waa in qofkii isagoo mas-uuliyaddiisii tahay amba xukuumaddu iyaday mas-uuliyaddeedii tahay haddana markay mas-uuliyaddeeda ka soo baxdo dee waa in loogu abaalgudo oo loo sheego oo loogu mahadnaqo wixii wacanna waa inaynu muujinno oo aynu magaranaysaa yacni inaynu ku faraxsanayo inaynu ku mahambalyeynayno aynu muujinno wixii inaga maqanna inaynu dee dhaliisha iyo canaantaba aynu magaranaysaa iyo taladaba aynu halkaa ka wadno ayaa waajiba marka walaal wasaaradihii hore ee aad u baahatay iyo wasaaradaha imika labada xukuumadood maaragtay farqi baad u aragtay inuu dadaal xagga wasaaradaha ayaa tiri walaal halkaa iigu celi fadlan waa mahadsantahay walaashay muna aad baad u mahadsan tahay haddaan halkaa kuugu celiyo waxa weeye markii 2015 aan tegey wasaarado badan baa dan iga gashay marka aad baan ayaan ugu yar dhibaatooday waxaan arkay inay waxa ka jiray waqtiga inuu aad u yar dayacnaa laakiin maanta markii waxaan doonayay laftigaygu inaan isku eega bal maadaama anigu xagga ma yihi siyaasiyad ma yihi mana kuma fiicni xagga siyaasadda laakiin maadaama aan ka shaqeeyo arrimaha daryeelka hooyooyinka iyo carruurta iyo dadka baahan oon jecelahay inaan arrimaha samafalka ah had iyo jeer wasaaradaha caafimaadka waxbarashada waan wada shaqaynaa waxaan iga soo gasha dan marka projectka aan u socday aawadii oo dhakhtarka ahaa aan hargeysa ka dhisayno ayaan ballan u tegnay wasaaradda caafimaadka wasaaraddaas marka waxaan differentkii baan isku eegayay maalintii horena same situation baan ku jiray waxaan arkay in ay maxay ahaydeenay 6 baan 7 baana lala ballamay marka waan yaabana waxaan lahaa 7 aroornimo sidee baanu wasiiradan u heli doonaa maalintii hore 8 barkii baana la ballamiyey 12 waana la arkay marka anoo isweydiinaya
ayaa waxaanu tegnay 7 la dadkii baan weydiiyey shaqaalaha security-ga all wasaaradda oo dhani way wada heegan bay ahayd way shaqaynayeen markaanu u tegnay xoghayntiina 2 minutes mabaanu taagnayn meeshii waxa la eegay appointment-kayagii markiiba toos ayaanu galay marka waxaad aragtaa marka doorashadu waxay wanaaga keentay waxa weeyaan waa isbedelkaas oo kale xitaa same xusbi ha dhaco laakiin kulley waxba isbedela ama wanaaga ha hata ama xumaha noqoto laakiin waxba isbedelaya isbedelkaasina wuxuu doonaya inuu noqdo mid kii hore ka fiican oo kale ayaa had iyo jeer dadku ku fikiraa marka way wasaarado badan oo kale aan booqday baa jira iyaguna sidoo kale hawshu saasay u socotay xagga dawladda dhexe anu waxaan isleeyahay wasaaraduhu aad bay shaqada ugu jireen 6 o'clockna way soo galayeen laakiin dawladda hoose wax aad iyo aad baan uga ahay disappointing aad baan uga xumahay walaalo intayna dawladda hoose u gelin halkaa dawladda hoose in 2015 baad Somaliland tagtay kaasi ay in 2018 oo u dhaxeeya marka caasimada Hargeysa iyada wax isbedela miyaad ku aragto xagga horumarka ah oo hadday noqoto wado hadday noqoto in wax nidaam la nidaamiyay meel in miyaad iyada wax halkaa miyaad nooga sheegi kartaa intaana hadal wax rabaa inaan dadkeena reer Somaliland aan ogeysiiyo Aasiya Faarax inay in dadka in samafalka ka shaqeeya reer Somaliland ka mid tahay ururka caanka in waxtarka badan ee la yidhaaho gaaroodi women group hablaha gaaroodi in oo dhakhtar weyn in hore uga dhisay salaxley imikana dhakhtar in xagga dhimirka ama mental health problems ka dadka reer Somaliland caasimadda Hargeysa ka dhisaya oo dhakhtarkaasi dhismihiisu imika socdo marka walaal in aad baan ugu faraxsanahay inaad programka aad nagala soo qayb gashay in waxaan markaas su'aashii baan kugu celinayaa in wax isbedela 2015 2018 magaalada Hargeysa maamul ahaan in bilic ahaan iyo in dhinac walba bulsho xagga bulsho ahaanba bismillah alxamdulillah walaalkay horta aad baan kuugu mahadnaqayaa waan aad baan yaan ku taageeraa aadna waan kuugu han weynahay su'aashaadu waa su'aal muhiima waxa weeye walaalo horta caasimaddu aad bay u weynaatay waxa kabaca badan iyo dhulka quruxda badan ee arkay ama hotel ha ahaato ama guri ha ahaato shicibkaa samaystay waxa kaliya oon arkay waxa weeyaan wadada waxaan u malaynayaa airportka oo kale intan ay ka yarayd markii hore aan tegey iminkase ay ka ballaaran tahay waxa kale oo aan is yidhaahdo meel kasta oon sidaa u eego meel ay indhahaygu arkaan oon is yidhaahdo allay leeyahay meeshaasaa ku soo korodhay oo aan de bilicda waxa weeyaan waynu ognahay oo beer la fadhiisto oo lagu raaxaysto wadooyin maxay haydeenay traffic lightkii leh muxuu ahaa dhul wanaag maan arag waxaanan arkay weliba oon aad ugu fiirsaday iskuulka maxamuud axmed cali oon anigu ka soo baxay oon ad iyo jeer hormari jiray waxa uu ugu qurux badnaa 2002 maanta oy tahay 2018 waxaan ku arkay inuu geedkiisa xitaa godad laga samaystay la galo marka dawladda hoose anigu wax alla waxaan islaahay Hargeysa way ka qabatay ma arag ma sheegi karo I'm sorry waan ka xumahay laakiin aad iyo aad halka ay caasimadu ka cadilay waxay ahayd arrimaha dawladda hoose waxa weeyaan totally ma arag qof xashiish kuraya totally ma arag maxay ahaydeenay gaari xashiish qaadaya maan arag maxay ahaydeenay dad habeenkii shaqaynaya oo dhulka xaadhaya
maan arag laydharkii cadceedda waayo cadceeddu waxay ahayd 6 to 6 marka waxaan laakiin aan aad ugu hanweynahay in isbeddelka soo socda oo deegaanka ah in aanan waqti la luminin si loo helo dowladda hoose oo dhulkan iyo waayo waxaad arkaysaa riyaha oo kale dhulku guryaha hortooda lagu dhaqanaya taasna waxa weeyaan maaha kuwa meel kale ka yimaada waxa weeyaan dadku albaabada hortooda waxay ka samaysteen bulaacado waaweyn oo waddadii soo galay oo kor loo kiciyey iyo dhagax waaweyn oo daadadka lagu qaaday marka dowladda hoose waxaanay lahayn minishibiya maan arag cid wax ganaaxaysa qof tigidh loo jaraya maan arag marka haddaan dadku cabsoonin oo aan tigidh loo jarin oon lagula xisaabtamin wixii waddada yaala waxa weeyaan qof kastaa wuxuu doono iska samaysanaya waddooyinkuna absolutely waxay ahaayeen mid aan loo dulqaadan karin marka maxaad u malaynaysaan walaalo iidow maxaad u malaynaysaa yacni sideebaa lagaga bixi karaa midda kale mas-uuliyadda waxaynu saaraynaa mar walba dowladda hoose miyayna ahayn mas-uuliyad ay wadaagayaan runtii muwaadinka iyo mas-uuliyiinta maaragtay dowladda hoose laftigoodu sideebaa lagaga bixi karaa dhibaatooyinkan walaalo walaalo horta waa caasimaddu marka qaran la yahay sorry caasimaddu waa huga qaranka maanta haddii aan qofku shaqo tegayo amba uu interview shaqo leeyay intuu shaqo helay markaa loo ballamiyey si loo waraysto qofkan CV-giisa iyo hawshiisa qofkaasi waa inuu isa sii dhiso uu dhar qurux badan xidho you have to look smart ayaa la yidhaha yani waa inaad adoo qurux badan interviewgii tegtid haddii adigoo dee kala jeedaa tegtid oo dhar uskaga xidhan dee qofka interviewga kaa qaadaya isagoon gelinba aqoontaadiyo inuu ku waraysto already halkaa impression baa yimid ah qofkani qof yacni dee mas-uuliyad qaadi kara maaha marka qaranka caasimadiisuna waa sidaa waayo ummaddu markay cidina soo booqanayso marka dal la tegayo marka laga hadlayo xidhiirka bilateral relationska dalalka ay wadaagaan hadduu dee maanta madaxweyne dalka laynoo imanayo dee meel kale ma tegaya caasimaddu imanaya hadday wafdi dal kale inooga imanayso caasimadday tegayaan marka caasimaddii haddii aan marku sida aeroportka looga soo daadego aan impression uu samaysmin ah wallahi dadkani dee waa dad waxay himiladoodu tahay ay ka muuqato waayo himiladeenu waa maxay waa inaynu qaran jirannahay oo jiri doona oo isku tashaday oo wax qabsaday markaa taasi hadday caasimaddeena ka muuqan weydo dee waxa loo arkayaa un dhowdhow hadal meel waayey baa loo arkayaa waa layna dhaafaya waxaa la yidhi kenya berigii ay madax bannaanida afrika 60kii u dhoweyday afrika ay madax bannaanida rabtay ayaa nin ingiriisa kenya booqday oo markaa hudheel buu ku dego lift buu hudheelku lahaa markaabaa kuwii hudheelka joogay kenyaanka ahaa ee shandadaha u soo qaaday ayaa markay la soo koreen liftigii ayaa shandadihii dhulka may dhigin ee shandadihii sare u hayaa liftigiina wuu socdaa markay floorkii ay rabeen soo gaadheen bay ka daadegeen shandadii iyagiioo weli sida maqsinkii uu rabay ruumkiisii bay u geeyeen markaa ninkii wuxuu yidhi waa la yidhi kenya weli diyaaru ma ahayn madax bannaani muxuu ula jeedaa yacni raggan garan waayey shandada dhulka iska dhig lift baad ku jirtaayo dee uma baahnid inaad sidee ayuu markaa ayuu ka bixiyey maxaa la yidhaahayey commentka inaanay welida diyaar u ahayn madax bannaani in la siiyo marka waxaan kala socdaa dadkayna soo booqanayaa haddii ay arki waayaan in caasimaddeenu ilan waa caasimad baynu leenahay marka somaliland sheegayno hargeysa waa capital of the republic of somaliland haddii caasimaddii caasimad ahaan ay u ekaan weydo caasimad u ekaan weydo dee wuxuu noqonayaa waxaan jiri sidaa daraaddeed waxay aad madaxdeenu ay carabka ugu dhuftaan ay ku cawdaan inay waddan dhaqaale yar aynu nahay oo hayntiisu badneyn
iminka waxyaabaha ay soo sheegtayaasi ee ah xoolaha magaaladii dhex yaacaya awal hargeysa waxa lagu arki jiray dee waa ri un baynu arki jirnay maanta hargeysa waxa dhex socda waa ri waa ay waa lo'dii waa geelii caasimadda dhexdeedii bay daaqayaan madaxtooyada geedaha ku yaala ayuu geelu daaqaa yacni lacag uma baahna in amar la soo rogo la yidhaaho xoolaha noocu doonaha ahaadee iyo geeluba in area ka mida magaalada oo intaa dhexe ah waa ka mamnuuc to start with yani si loogu bilaabo la yidhaaho intaa waa ka mamnuuco ma soo geli karaan hadday soo galaanna markaa ay dowladdu la wareegto dee ciidanka qaranka loo geeyo oo ay ku qadeeyaan taasi waa mid lacag uma baahna sidoo kale waxaan lacag u baahnayn in jaadkan magaalada koono walba yaale guri walba lagu hor iibinayo la yidhaahdo magaalada 4 koone ee magaalada looga sameeyo xerooyin haddii lacag u baahan yahayna wax yar buu baahan yahay at the same time lacag baa uga soo xaroon lahayd dowladda hoose lacagaha ay ka helaan jaadka lacag ka badan baa halkaa ka soo geli lahayd waayo markay center sameeyaan jaadka lagu iibiyo oo ay u sameeyaan maqsino yaryar oo qof walba galo license bay u samayn lahaayeen qof walba ay bil walba wax kaga qaadayaan halkaa jaadka ku iibinaya dan halkaa lacag baa uga soo xaroon lahayd lacagta lagu mantengareynayana way ka soo saari lahaayeen magaaladiina qashinkii baa ka yaraan lahaa bacdii qaadka lagu tuurayey garaabadii lagu tuurayey wixii oo dhan magaalada uu ka bixi lahaa also gawaadhidan xawaaraha ku socday magaalada soo dhex qaadaya ee dadka leynaya nafuhu ku baxayaan maalin walba ayaa iyaduna yaraan lahayd sidoo kale magaalada in wadooyin maxay heday map loo sameeyo town plan maanta aqoontu iminka 50 sano ka hor oo kale aqoontu qaali bay ahayd oo si aad u hesho shirkad dee caasimad kugu samaysa a town plan dee millions and billions of dollars baa ku baxayay maanta waxaa laga yaabaa haddee shirkad Chinese amba tu Hindiya amba tu maxaa la yidhaahayey Malaysians amba tu noocay doonta haddee Far East wadamada yaryar ku yaala iyo Middle East kaba Iran aqoontii meel walba ay taala shirkadda deynta la soo kiraysto inta tender la sameeyo ugu fiican la qaato la yidhaaho caasimadda town plan ugu sameeya ya kadib town planka la flow gareeyo oo magaaladan ciriiriga noqotay wadada qura leh ee aan duhurkii la dhaqaaqi karin wadooyin kale loo sameeyo loo kala saaro magaalada lacag in caasimadda la geliyaa waxay la mid tahay qaranka maxay heeday jiritaankiisii oo la sii sugay marka caasimaddu sideedaba waa inay ka mudnaato magaalooyinka kale maxay kaga mudnaanaysaa because waa caasimadde waa inay dowladda dhexe dowladda hoose qura dowladda hoose mas'uuliyaddii iyada ugu weyn oo saaran laakiin dowladda dhexe laftigeedu hami qaran waa inay yeelataayo dee madaxweynahan dhex socda wadooyinkan iyo meelahan aad moodada islaamska yacni afrika caasimadaheedu caasimad walba leedahay meelo yacni dee guryo yaryar oo iska foolxun oo wadooyin fiican lahaynoo hargeysida waa wada sidii waa islaams yani waxay magaalada dhan ya marka madaxweynuhu amba wasiirku markuu magaalada dhex marayo waa inuu dekad idiyo yidhaaho sidee caasimadu sidan ugu ekaata marka budget gaara in sanadkii loogu daro miisaaniyadda oo maxaa la yidhaahayey loogu qoondeeyo bilicda magaalada sidii loo hagaajin lahaa wadooyin tayo leh oo standard leh wado zebra crossing leh magaalada kuma jirto layman looma sameeyo wadada la dhisayaana waa iga geewun inta la madoobeeyo ayaa the next day way burburtay marka waxaaniiba hadduu noqdo iga gee oo dheh yani waddaa loo samaynaya maayarka dhan magaaladaa soo baxaya wadda yaroo la samaynayo horu istaagaya waddadan every day ina wadda la sameeyo weeyaan maaha in sanadkii inta wadda la sameeyo la yidhaaho maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii iyo dowladdii hoose oo dhan baa halkaa taagan oo wadday samaynaya ya waddadu in la sameeyo dowladda hoose waa shaqadeeda dowladda dhexe waa shaqadeeda waa in la iska kaashado oo horta balla bilaabo waxyaabahan lacagta u baahnayn ee caasimadda lagu hagaajin karo in laga howlgalo oo arigan magaalada laga daayo aydan laga ururiyo
maxaa la yidhaahayey qashinka sidoo kale caasimadda qashinka waxa ka guraa waa shirkado private maanta Somaliland ma taagna heer ay shirkado private qashin ka guraan adduunkan aynu arkayna kumaanku kasana jira ayaa wali lagu murunsan yahay in privatization ka wax la yidhaahee in serviceka dawladdu ay bixiso in la private laga dhigo in aad dadka qaar uga soo horjeedaan sababtuna waa maxay waxa weeyaan sharcigu haddaanu weliba xaggeena dadkan sharci baaba qabanaya ya oo xaggan waxa lagu diidayaa yani waxay xoogga saarayaan profitka yani faa'iidadii therefore servicekay samaynayeen mar walba qaalib u ahaanaya xaggii markay dawladdu gacanta ku hayso laga yaabo inaana profitku focuska noqon ee qualitygu focuska noqdo waayo dad la doortay oo lala xisaabtamayo ayaa maxay haday mas-uuliyaddii ay saaran tahay laakiin marka private laga dhigo la privatization la geliyey shirkad private la wareegto shirkaddii privatekii mar walba waxay ku xisaabtamaysaa turnoverka iyo profitka yani waa inay faa'iido sanad walba ka keento oo sanad walba faa'iidadeedu weliba sii korodho marka waddan fiqiira oo institutionadiisii adkayn oo ay wada maxay haday fragile yihiin sida Somaliland privatizationku is not the answer dawladda runtii imika tallaabooyinkan ay qaaday xukuumaddu la soo celinta hantidii hore privateka looga dhigay aad baan ugu raacsanahay oon ugu hambalyeynaya laakiin caasimadda laftigeeda waa inay dawladda hoose gacanta ku dhigtaa nadaafadda magaalada ma aha inay shirkado private ka guraan qashinka magaalada maanta Hargeysa 30 gaari baa ku filan oo gawaadhida qashinka gura ah oo maxaa la yidhaahayey 30 gaari midkiiba 3 shaqaale ka shaqeeya 30 gaari oo 3 shaqaale ka shaqeynayaan waa 90 shaqaale 90 marka la isku geeyo 90 shaqaalo midkiiba hadda xitaa 200 la siiyo maxaa la yidhaahayey $200 la siiyo bishii ya gaarigaasina midkiiba jooga kaba soo qaad ugu badiyo $50,000 dheh wax $2 milyan ka yar ayaa horta to start with lagu bilaabi karaa kadibna maintenancekeedu iyo runningkeedu inuu sanadkii $1 million ya inuu ka yaraadaaba uu ka yaraanayaaba waayo marka 90 xitaa haddaad double ka dhigtidood 160 amba 180 qof ay ka shaqeeyaan ay gawaarida la socdaan $1 million marnaba ma gaarayso marka lacagtii waa la hayaa lacagtu way waddanka way taalaa waxa wanaagsan in lacagta ummadda si wanaagsan loogu maareeyo halkay u baahantayna la geliyo dadkuna fahmaan reer Somaliland fahmaan especially mas'uuliyiinta caasimadda ka talisa iyo mas'uuliyiinta xukuumadda ka talisa madaxweynuhu ugu horeeya war caasimaddu inay huga qaranka tahay madaxweynuhu suud qurux badan buu maalin walba xidhaa suudka quruxda badan muxuu ugu fadhiyaa iyo maayarka magaalada iyo maayarku xigeenku maxay ugu fadhiyaan haddii magaalada ayna dhex lugeyn karayno within half an hour uu wada siiga noqonayo marka waa inay taa ka fikiraan baa loo baahan yahay maaha doorashadu in kursi dhalaalayo AC amba air conditioning ku shidan yahay la fadhiistoon caasimadda waa ina sidan si loogu dhaamo oo biyaheeda insha allah la hagaajiyo صح إن شاء الله taasi waa mas'uuliyaddii dawladda hoose madaxda dhammaan laakiin haddii aynu mas'uuliyadda qaybinno soo muwaadinka laftigiisa lagama rabo xashiishka inaanu dhulka ku tuurin aqalkiisa hortiisa inuu hagaajiyo inaanu ugu yaraan dee haddaanu magaalada xaadhi ka lahayn uu wasakh ku daadin inuu isagu laftigiisu ileen dad muslimaynu nahay nadaafaddu waa qayb iimaanka ka mid ah marka innaga laftigeenna ma laga yaabaa inaynaan waxba yeynad amba dawlad dhexe ha ahaatee keligeed mas-uuliyiinta ayaynaan mas-uuliyadda saarine run ahaantii dhibaatada waa dhibaato la qaybsanayo mas-uuliyaddeeda oo waxaan u arkaa muwaadinka laftigiisu inuu qayb ka yahay amba uu xalkana qayb ka noqon karo dhibaatadana uu qayb ka yahay siday kula tahay arrintaasi walaashay aasiyay adiga haddaan kugu horeeyo waa mahadsantahay walaalo bismillah arrintaasi waa mid jirta laakiin
arrintaasi waxa dadweynaha waxa haystay waxa weeye wadan shaqo la'aantu ku badan tahay dadku aad bay aad moodaa inay u cararayaan oo ay u cararayaan si ay maalintii waxay cunaan ay soo qaataan inay busy ku yihiin marka arrintaa waan isweydiiyey waxa ka gaabiyey waxa weeye degmo kasta waxay leedahay guddoomiye degmo kasta waxay leedahay dawlad hoose oo degmada xakunta oo xaafad xakunta oo cashuurta guryaha ka qaadata oo maxay ahaydeenay ilaalisa danta xaafadaas guddida xaafadaa ka samaysan iyo iskuma xidhna dadka degan deegaanku waayo waxa weeyaan in olole laga galo oo kontonkii reerba la rajisgareeyo oo la ogaado in ay dadkani meesha ay ku nool yihiin ka wada hadlaan oo ay guddi samaystaan guddidu way jirtaa dawladda hoosena waxay leedahay degmo walba waxay leedahay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen laakiin dhibta jirtaa waxa weeye dadka shicibka oo sixir barar iyo baahi badani hayso oo ku mashquulsan siday u heli lahaayeen nolol maalmoodkoogii iyo iyada oo aanay arkaynin wax intuu guriga ku soo garaaca la xisaabtamaya oo odhanaya biyahan uskaga inaad meesha ku shubto ma yahayn xashiishkan inaad halkan dhigto ma yahayn iyagiina ma odhanayaan ma raadsanayaan oo sidaa aad sheegtay oo intay 10kii reerba ay guddi samaystaan haddii ay dad yar xitaa wax yar siiyaan xaafaddaa waddada waa loo hagaajin lahaa way samaysan kari lahaayeen laakiin dadka waxaan anigu arkay in ay markay arkeen inaanan laysla xisaabtamaynin iyaguna baahi hayso inayna dadku aqalada markaad gasho aqal kasta oon galo dhexdiisa waxaad soranaysaa ha ka bixin aqal kasta waxa yaala 2 fadhi waxa yaala hurdooyin qurux badan cunto qurux badan dadka xaafadda degan especially ragga guryaha lihi markay soo galaan waxaan isiraahdaa waxay soonanayaan malaha dib dambiba adduunka kama jirto laakiin waxa weeye markan ay baxaan ay albaabkan ka baxaan anigu markan albaabka ka baxo waxaan eegayay meesha aan marayo dariiqu siduu yahay tagsigani wadaa sida uu u yahay markan meel alla markan meesha maraan arko dhul wada googo'an dadka ila socdaan weydiinaya waxaan leeyahay why aad xaafadani guddi u samaysan weydeen why internet iskaga hagaajin weydeen markaasay yidhahdeen noloshii baanu ku xisaabtamaynaa maalin oo dhan waanu maqannahay markaa ma haleelayno cashuur baanu bixinaa cashuur haddaanu bixino dawladda hoose waa inay samaysaa marka sababtaasaa jirta waa si fiican waxaa jira walaalo iidow wadamada caalamka khaasatan wadamada islaamka oo kale iyo wadamada carabta wax loo yaqaano usbuuci nadaafa amba wiiga toddobaadkii nadaafadda waxaa la xasuusiyaa qofka muwaadinka ah isaga laftigiisu inay waajibkiisa tahay xashiishkuu dhulka ku arko inuu ka qaado dhagaxuu dhulka ku arko inuu ka qaado yacni waxa jirta maalinta haweenka waxa jirta maalinta hooyada yacni waxyaaba qaar ayaa dadka la xasuusiyaa iyadoo qofkii uu maaragtay uu og yahay marka inagu maxaynu u samaysan weynay maalmo munaasabado gaaro noocaasa oo ayno inay nadaafadu tahay uun maaha in guriga dhexba maaragtay waajib ka saaraya muwaadin ahaan oo aynu dadkii xasuusinayno maxaynu u samaysan weynay inaga laftigeenu maalmo noocaasa oo aan micnaheedu yani muwaadinku uu xashiishka dabadda ka qaadaye laakiin ay tahay waqti la xasuusinayo oo dee magoogta dadka lagu abuurayo khaasatan dhallaanka waa qaybta yani waa halka ay ka soo gelayso mas-uuliyaddu mar walba ay kaga noqonayso xukuumadda iyo dowladda ummadda haddii aan waa la qaabeeyaa ummadda kolba ummad walba siday hoggaan walba sida uu rabo ummadda ayuu qaabeeyaa dhulkan aynu joogno waa de dhowr boqoloo sanno ka hor nadaafad ma jirin taariikhda waxaynu ku ognahay xitaa inay berigii hore the romanska dadka la odhan jiro de dhulkan maamuli jiray
markay dhergaan afkay farta iska gelin jireen yani may aqoon inay cuntada iska yareeyaan markay dhergaan ayay afka farta iska gelin jireen ma tegi jireen marka wuxuu dhaqan buu dabada ku hayaa dhaqankana mar walba waxa abuuro kolba ummaddu dhaqan quray ku dhajisnaato joogtaa ma jiro dhaqanku wuu evolve gareeyaa wuu kobcaayo marxaladuu maraa innaga dhaqankii miyigee ahaa inaan jirin qashin meel la geeyo lagu soo qubee buulka agtiisa uun meel ka baxsan lagu ururin jiray oo buulka gudihiisana la nadiifin jiray tiyuun baa magaaladii ilaa maantana ka jirta yacni educationkii iyo nidaamkii dowladeed intii horeynu soo marnay waxaynooma tirin imikana waxay caasimadda ay ka muuqatahay oo waxuu inoo taray ma jirto marka taasi waxayna tusaysaa inaanu shaqaynin oo sidii loo baahnaa ummadda dhaqankeeda loo influence garayn si ay nadaafadda muslim baynu nahay yes alnadaafa min aliimaan waad ii sheegay oo diinteenay ka mid tahay haddana qofku intuu qaado qashin ayuu dariiqa hortiisa dhigayaa oo gurigiisii ka soo saaraya marka in la tuso dadka gurigaagii waad nadiifisay laakiin hortiisuna waa inay nadaafaddu waa qayb bay ka tahay nadiif ay ku noqoto weeyaan markaa waa wacyigelintii oo wacyigelintu waxay gelaysaa educationka ilmihii lagu barbaariyo iskuulka inaanu dhulka wax ku tuurin gurigii markuu ka tago guriga hooyadu ku barbaariso iskuulkii lagu barbaariyo dariiqana waxaan la yidhahaa law enforcement imika london baynu deganay matalan dariiqyada waxa ku yaala speed cameras yani haddii aad meel 30 lagu marayay aad dhaafisood 31 amba 35 ku martid kamarad baa kugu dhacaysa taasi qayb bay ka tahay inaad dhaqanka dadka la geliyo in haddii speedkii meesha loogu talagalay uu dhaafo uu waxyeelo geysan karo oo halkaasi dadka ku badan matalan haddii 30 markaad ku socoto qof aad jiidho dee qofkaasi wuu badbaadayaayo wuxuu rajo boqolkiiba 80 amba boqolkiiba 50 inuu badbaado halkii 30 loogu talagalay markaa ee dadku ku badnaayeen haddaad 40 ku martid qofkaad 40 ku jiidhaa dee boqolkiiba 10-20 bay noqonaysaa survival maxay haday chancekiisa inuu noolaado marka yacni dadkiisaba nidaamkaabaa loo geliyay markaa systematically ina dhaqankeenii ay dowladdu mas-uuliyad iska saarto oo curriculumkii dowladda educationka lagu daro la baro law enforcementkiina la sameeyo dariiqyadii dee haddii boolisku arko qof wax tuuraya uu ka qabto sidoo kale intaan horta tuuridba la gaadhin la sameeyo magaalada dhexdeeda caasimadda matalan dariiqyada shaaracee lagu badan yahay suuqa meelo qashinka lagu rido si qofkii hadhow at least oo kii rabay inuu ku riday isagu ku beernaa waxani ku beernayd uu meel uu ku rido u helo ilaan qof caagad maalintii oo dhan caagadii ma sidanayay marka runtii yani shicibku qayb mas-uuliyad bay leeyihiin ee mas-uuliyadda ugu weyn boqolkiiba 90 waxa leh waa dowladdii marka inay dowladdu halkaa runtii ay xoog iska saarto oo nadaafaddii maxaa la yidhahay dalkii siduu nadiif noqon lahaa caasimadda iyo magaalooyinka kaleba dalkeennu waa inuu noqdo dal nadiifa muslim baynu sheeganaynaa waxaynu leenahay dad nadiifaynu nahay dalkeennuna waa inuu nadiif noqdo oo aan qashin meel walba aanu oolin bac aanay geed walba ku xidhnaan xoolo baktiyey amba bisad baktiday meel walba aanay oolin marka mas-uuliyadda anu waxaan kusoo gabagabaynaya dowladdu inay mas-uuliyad weyn iska saarto iska saarto iyo inay muwaadiniintuwa mas-uuliyad iska saaraan taasi waa lagama maarmaan waxaa ka mida dadka commentka inoo soo maxamed aadan wuxuu yidhi si ay walaalo leeyahay isla xisaabtan ayaa keenta shaqo wanaag markaa wuxuu ka hadlay mas-uuliyiin loo xil saaray dowladda hoose in lagala xisaabtamin shaqaday qabteen amba dayaca ku jirta maaragtay dowladda hoose shaqadii laga rabay marka isla xisaabtankaasi inuu inagu yar yahay ayuu sheegay siday kula tahay arrintaasi walaalo
haddaan ku horeeyo walaashay Aasiya. bismillah waa runtiisa maxamed waa runtiisa niyadayda ku jirtay oo aan doonayay inaan ka hadlo waxa arintaas oo dhan ka mas'uuli waxa weeyaan isla xisaabtan la'aanta waayo shicibka laftigiisa hawsha loo haya ee cashuurta laga qaadayo ma weydiinayaan cashuurtoodii xisaabtii laga qaaday lacagtii laga qaaday wixii loogu qabtay ta kale markii aan dadka weydiiyey waxa la igu yiri dawladda hoose waxa ay ka dhaqaaqi laadahay oo ay ka socon laadahay waa wasaaradda arrimaha gudaha ma hubo laakiin waxa la igu yiri system baa jira ilaa waqtigii aynu wadanka aynu la soo noqonay la sameeyay kii baana wali lagu dhaqmaa marka waxa weeyaan had iyo jeer waxa jira la yiri inay dawladda hoose iyo dawladda wasaaradda arrimaha guduhu ay had iyo jeer isku xidhan yihiin marka anigu waxaan is oran lahaa waxa muhiima maadaama ay dadku rejisteraysan yihiin oo madaxweynahaba la doorto in maayirada ee caasimadda Hargeysa inuu saddexda xusbi qaran saddex nin intay soo sharaxdaan oo injineer ah in la doorto oo marka uu noqdo nin power leh oo aan dawlad hoose wasaaradda arrimaha guduhu iyo xogaaya ay u soo dirtay mid toona aan isku xidhnaanine ay noqoto maayir uu isagu balaankan dhiga oo wadankan magaaladan caasimadan iyo gobolada kale iyo degmooyinka kaleba xukuma oo wax walba dadka la xisaabtama in la soo saaro oo waqtiga 4 sanadood ee madaxweynaha la doorto 5 madaxweynaha la doorto oo kale in isagana 4 sano la doorto hadii 4 wax ku dhamaan waayaana mid kale la doorto laakiin systemkeena wax loo dooranayo iyo systemka isla xisaabtanka iyo wax arrimihii aynu markii wadanka aynu go'dib ula soo noqonay aynu doonaynay in aynu ku dhisano wax ku hagaajisano ayaan ilaa imika la bedelin for example mas'uul sare ayaan weydiiyay maxay dawladdu u yeelan weyday dawladda hoose municipio wuxuu igu jawaabay xeerka ay noo yaala constitutionka iyo ma hubo inay tahay ayaanan qeexaya inaanan ciidan saddexaad la samaynin maya waa lagu arkayaa iidow waa lagu arkayaa imika walaal waad ku jirtaa waxaan kaloo weydiiyey maxay haydeenay loo sameyn waayey degmooyinka maxaa haween loo dooran waayey maxaa loogu degmada for example degmada Maxamed Moogo kale degmada maxay haydeenay New Hargeysa degmooyinka muxuu xaafadaha yaryar kamida Hargeysa kamidi maxaa loogu sameyn waayey waxa la igu yiri mas'uulkii sare ee dawladda hoose wuxuu igu yiri dhulka ayaa la isku qabsadaa ka bacdina dumarka way leynayaan raggu marka anigu waxaan u malaynayaa in haddii dumarkana la dooran lahaa oo deegaanka loo dooran lahaa oo degmooyinka looga dhigi lahaa guddoomiyaal degmo iyo guddoomiyaal gobol inay nadaafadeena iyo dawladda hoose wax badan iska bedeli lahayd waa si fiican walaalo walaalo waxa inan baa inoo soo qoray isaguna kaman kale Aasiyay wuxuu yiri bridge-kii Hargeysa ayaa dumaya iid baan soo qabanayaa walaalo inta ma uga sii jawaabi kartaa fadlan arrinta ah bridge-ka Hargeysa waxa laga yaabaa bridge-yadeenu inay magaranaysaa waqti dheer oo qaar badani malaada ilaa xilligii magaranaysaa Ingiriiskiiba ay jireen marka waxa weeyaan walaal bridge-yadaasi kulay daryeelkoodu de waa mid dawladda runtii number 1 maaragtay mas'uul ka yihiin sidee kula tahay walaalo adigoo mahadsan Aasiyay bismillah horta waxa jirta intii aan Hargeysa joogay maalin ayay igu dhacday 12 barku
bartamaha suuqa meel u dhow tiyaatarkii waxay noqotay in aanu ka soo bixi kari weyno oo la yidhi bridge-kiina wuu buuxaa dooxana oo dadku ay dhex maraan baabuur baa ku jabay waxay nagu qaadatay in aanu intaanu berbera u baxno maadaama anigoo aan deganaa masalaha inaanu intaanu wadadii berbera qaadno aanu dusha ka soo galno xagga iyo maxamed mooga xaafadda la yidhaahdo oon kaga soo dhacno masalihii halkaas waxay soo gaadhay xaafadaydii 2 duhurnimo waxaan isweydiiyey haweenayda ku foolataa maxamed mooge oo danyarta ah sidee u gaari doontaa isbitaalkii weynaa marka waxa weeyaan bridge-kaas dumayo keliya maaha wuxuu u baahan yahay bridge kale bridge-ka dumayaana waxa weeyaan de mar haddaanan 30kii sane ee aynu joognay aan wax dayactira lagu samaynin roob badan uu da'ayo waxa weeyaan khatarteedii ku jirtaa haddii uu bridge-kaasi uu dumana magaaladu way kala go'aysaa marka waxa weeyaan isagoo jira ayay kala xidhan tahay hadday 12kii barhka gaadho haddii uu ilaahay naguma keena ee dumana de khatar baynu ku jirnaa marka waxa weeyaan dawlad iyo shicibba in la iska kaashado dawladduun maahayna dawladda iyo shicibka waa in la iska kaashado oo la dayactiro laakiin shicibka Somaliland rag iyo dumarba waxa weeyaan waa dad deeqsiyiina waa dad maxay ahaydeenay baacimishtarka ku fiican waa dad wax isiisiya waa dad doonaya inay nolol fiican oo qurux badan ku noolaadaan haddii ay helaan dad abaabula maxay ahaydeenay wax u sheega meeshii khasaare ka jiro waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay oon ogahay oon ku kalsoonahay inay qabanayaan oo dhammaynayaan the problemka inagayna haystaa waxa weeyaan in aanan layslana xisaabtamaynin ninku maaha maaha wadiga arkay waddankanaynu joogno qofku maalinta uu noqdo maamul sare uu noqdo ama maamulo noqdo ama uu sarkaal noqdo haddaad iskuulka tagto gabadha ninka ama gabadha maamulihii ilaa aroorta markaad gasho ilaa markay caruurtu baxayso dabaday taagantay mar xafiiskeega ma fadhii karto caruurtii iskuulka oo dareeraysa waa inay albaabka taagnaataa inagana haddii laynoo magacaabo dhulxaad waxa laga yaabaa oo lagu yidhaahdo waxa tahay liidarka team liidarka qoladaas nadaafadda inaad xafiiskaba ka soo baxaynin marka waxaan dhibaatadayna haysataa waxa weeye xafiisyada lagu xidhan yahay waxa loo baahan yahay waddanka wuxuu u baahan yahay in dibadda loo soo baxo in la shaqeeyo in dadka la abaabulo dadku waxa weeyaan waa dad aad u doonaya inay nolol fiican ku noolaadaan dadkan waxaan soo arkay gabadh ku nool guryaha loo yaqaano basaska oo waxa weeyaan baa laygu yidhi waa guri Soomaaligeennii aqal Soomaaligeennii oo la dheereeyey waan ag marayay waxa ku xidhnaa aqalka waxa ku ag rakibnaa satellite markaas satellite-kii baan isweydiiyey oo inan ila socotaan ku yidhi satellite-kani ma aqalkan uu TV leh markaasay ku tiri TV buu leeyahay inanta wararkay ka dhagaysanayaan marka waxaad arkaysaa qofkii xitaa haddii uu gurigaa ku nool yahay inuu doonayo inuu caalamka la socdo inuu nolol qurux badan ku noolaado marka dadkeena waa dad aad iyo aad waxaan soo arkay dad aad nolosha proud ugu ah dadka maxay ahaydeen faqiirka iyo ka taajirkii waa wada happy waxay doonayaan oo kaliya ay u baahan yihiin in cashuurtan laga qaado iyo deeqdan adduunku bixiyo iyo mas'uulkan loo hayo in dabadda loo soo baxo oo hawsha ay dadka la qaybsadaan ayay u baahan yihiin waa si fiican walaalo in waxa aynu
dhiirigelin badan gelinaynaa insha allah oo aynu aad ugu mahadnaqaynaa horta wasiiradaas oo kala haya ee runtii hawshoodii laga rabay si fiican u qabsanaya oo ay fiican tahay mar walba inaynu wixii positive ahna aynu sare u qaadno oo aynu magaranaysaa muujino sidaynu dhaliishaba u muujino run ahaantii wasiiradaasi wasaaradahaasi wasaaradaha ay ahaayeen ma noo sheegi kartaa walaalo adiga oo mahadsan waxaad sheegtay inaad ururka magaranaysaa hablaha gaaroodi aad xubin firfircoon ka tahay xaqiiqatan sidaan kugu ogahayba mashruuca dhakhtarka dhimirka hablaha gaaroodi ay ka dhisayaan magaalada Hargeysa ayay ahayd sababtii sidaad igu sheegtay magaranaysaa wasaaradaha danta aad uga yeelatay adiga iyo hablo kale oo ah xubno kamida ururka hablaha gaaroodi marka walaal wasaaradahaasi iyo wasiirada aad la kulantay ma noo sheegi kartaa wasaaradaha ay ahaayeen adiga oo mahadsan markaynu programkuna waa dhammaadeen bismillah walaal waxaan sheegi karaa wasaarado badan baan horta tagay laakiin wasaaradahan doonayana halkan uga mahadnaqabo waxa kamid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda maxay ahaydeen arrimaha bulshada intaba waan tagay especially wasaaradda caafimaadka wasiirka aad baan ugu mahadnaqaynaa sidii sharafta lahayd isaga iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka waxbarashadu ay noogu soo dhaweeyeen wasaaradda caafimaadka oo inoo qaabileen dhammaan xog hayntiisa iyo securitygiisa iyo wasaaradda dhammaanteedba on behalf of the hablaha gaaroodi anoo magacooga aan ku matalayo ayaan maxay ahaydeen aan uga mahadnaqayaa inta maadaama aan kamid ahay xubin kamid ahay inta soonan ahayn guddida iyo guddoomiye toona laakiin aan xubin ka ahay haddana waxaan uga mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ay noo soo dhaweeyeen sharafta lahayd iyo karaamada hawlihii oo dhan aan u soconnayna ay noogu fududeeyeen maadaama ay ahayd hawl dan guuda oon wasaaradda kala shaqaynaynay marka waxa weeyaan wasaaraddaas waan aad iyo aad baan ugu qushuucay si wanaagsan bay hawshu ka socotay wasaarado kale oo waxa jira aan iska booqday oon wax dan iga gelin laakiin aan rabay bal inaan ogaado sida ay u socoto waayo intii aan joognay bulshada badankeega oo dhan aqoon-yahanka maxay ahaydeen dhalinyarada haweenka intaba waan la kulanay si aan danta guud iyo baahida iyo wixii sida aan u qaban karnay siday wax noola qaban karaan dhakhtarkaas dhimirka ah oo baahidiisa aad loogu baahan yahay projectkiisuna uu soo socdo oo documentarygii aan ka samaynayna uu soo socdo oo mid aad u xanuun kulul u yahay oo aad qulubtayda iyo calooshtaydaba u bedelay oo dad badan oo dayacan oo maxay ahaydeenay xanuunka maskaxdu ku dhacay aanu kasoo duubnay waxaan rajaynaynaa inaanu shicib ahaan iyo dowlad ahaan iyo wasaaradda caafimaadkaba aanu iska kaashano oon dhakhtarkaa dhammayno insha allah aanan dadkaa la xereeyo mid laga sheekayn kara maaha documentigaas oo yimaado mooyaane laakiin waxyaalaha kale oo aan isleeyahay waxa u baahan in kor loo qaado oo innaga qadiyadeenna ama nabadeenna ama wanaaggeena aad moodo inuu hoos u yar dhigayo waa xagga maxay ahaydeen cadaaladda iyo maxkamadaha iyo booliiska in wax laga bedelo waayo waxaan arkay dad badan oo dadkoogu aanan la xukumin oo iska xidhan yihiin oo maxay ahaydeen kolba maxkamadda lagu soo celiyo haddana la celiyo marka waxa weeyaan haddii qofku dembi galo waa in la xukumaa oo waqtigiisa qaataa kabacdin xorriyadiisa uu dib u helaa laakiin inuu qofku jeel ku jiro oo station police uu ku jiro maxay ahaydeen 9 bilood ama 6 bilood waxa weeye mid xuquuqda aad u dhibaysa taa laftigeega waan arkay aad bay calool xumo ahayd waxaan aad maadaama wadankayga aad u jecelahay sidaadoo kale sida iidoo kale aynu nahay dad doonaya inaynu qadiyadeena kor u qaadno inaynu wadankeena wanaagiisa kor u qaadno inaynu maxay ahaydeen dowladeena iyo xisbiyadeena iyo intaba aynu kor u qaadno waxa
kor u qaadistaas waxaa ka qayb qaadanaya in loola xisaabtamo dadka loo dhiibay cadaaladda laftigeega waa in lala xisaabtamaa waxaan kaloon maxay hadeenay aan arkay booliiska traffica dadka baabuurta kala celiya inamadaas aad baan halkan uga salaamayaa waxa weeyaan waxay ku jireen xaalad adag oo baabuurtu ay xoog u badan tahay bacadkuna xoog u kulul yahay ayay kala celinayeen qadarinta iyo sharafta markaad joogto Hargeysa oo aad haweeney tahay aad baan ugu qushuucay sida ay traffica ay u ixtiraamayaan haweenka baabuurada wata haweenka baabuurada ku jira in aad baa lagu qadarinayaa waxay igu I'm very proud inaan ahay Somaliland red haweenaya waayo waxa weeyaan markaad aragto sida haweenka magaalada dhexdeeda loo qadarinayo waa si aan loo waxa weeyaan waa mid aan qiyaasi karaynin farxad bay tahay inaan taana soo arkay in booliisku markuu ku joojiyo haddaad haweeney tahay baabuur wadata waxa laga yaabaa inaanan lagu joojininba ee lagu eego haddaad baabuurka ay habluhu ku badan yihiinna inanka sharcigiisa la eego oo markaa sharcigiisa maxay ahaydeen loo fiirsado in hore loo sii daayo halka baabuurta kale ay rag ku badan yihiin waqti badan la siinayo marka inamadaas jisaakum alkhayr baallahi allah ya ciise sida hablaha u ciiseynaysan iyo haweenka Soomaaliland ma sha Allah waa si fiican ma sha Allah inamada iyo ciidamada dhan ee wadankeena gudaha iyo dabadaba iyo xuduudahaba maaragtay taagan in dhammaan waxa weeyaan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta qiimaha leh ee hawshoodii loo igmaday sidii laga rabay u qabanaya iyo wasaaradaha iyo wasiirada aad soo magacawdayna aad baynu u salaamaynaa in uguna mahadnaqaynaa waajibkooda ay sida wacan u gudanayaan kuna dhiiri gelinaynaa wasaaradaha kale inay ku daydaan oo wadanku sida u wada socdo insha Allah in muwaadiniinteena sharafta lehna waxaynu leenahay war dalkan laydinkama laha ee waa dalkiinii mas'uuliyiinta ha ku eegina ee idinkuna hawshiina dhinaciina ka qabsada in gamca wada joog bay wax ku qabtaan walaalo in walaashay Aasiya Faarax Muuse oo in programka caawa marti ku ah insha Allah aan rajaynayo programyo badan oo xiiso leh oo tayo leh inaad magaranaysaa insha Allah in nala soo jeedisid aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay programkan qiimaha leh programku haddaan mar labaad in xasuusiyo wuxuu ku socday socdaalkii walaalo Aasiya ay ku tagtay in dalkeena qaaliga Somaliland samarkii iyo waxyaabihii ay ku soo aragtay hadday tahay waxyaabo wacan oo ay u qushuucday iyo waxyaabo ay rabto magaranaysaa in aynu wax ka qabanno insha Allah inta aynu hawada ku kulmi doono dhammaan waan idin mahadnaqayaa walaashay Aasiya aad iyo aad ugu mahadsan tahay programkan qiimaha leh in walaalkeen Eid Xasan aw Faarax in uu ka baxay in Eid line-ka oo magaranaysaa cilad farsamo ayaa ku dhacday in Eid in Xasan aw Muuse ayaan ka wada in marka waxa weeyaan insha Allah program kale ayaynu isagana kula kulmi doonaa walaashay Aasiya aad baad u mahadsan tahay walaalo aad iyo aad adiga mudan walaalo sharaf bay tahay inaan nigala soo qayb galo aad baan inigu faanayaa dadaalkana halka ka wada insha Allah in waxa kale oo waxa weeyaan Antonio inaan hadalka waan soo gabagabaysay waad mahadsan tahay waxaana nasiib u helin in yar ma ku darsan karaa sawan ka baxayna waxaan ka xumahay inaanan la kulmin wasiirada arrimaha bulshada oo wasiiradaas aad baan iyadana ugu hambalyeynaya sida wanaagsan ee kartida leh ay hawsha u wado waxaan kaliya ku biirin lahaa Hinda Marwe Hinda in ay samayso in kontonkii reerba la rajiskareeyo baahi badan baa jirta dayac badan oo waxa jirta caruuro hooyooyinkooda ay ka shaqo tagayaan oo waqtigii 6 jirka ahaa ee tarbiyada islaamka ay ka bilaameysay dayacmay
oo hooyooyinkood baahi suuqa fadhiya wuxuu iibinaya caruur yaro kala haysa baan arkay marka waa in loo tababaraa dad social worker oo dadkan la ilaaliya dadka si bulsho wanaagsan aynu helo inta waan ku hambalyeynaya waxaanu u baahanahay in wax badan la qabto insha Allah aad iyo aad baan kuugu hanweynahay aad baan ku hambalyeynaya walaal waan ku faraxsanahay sharaf bay tahay inaad soo caasunto on kala soo qayb galo on kuwad ku mahadsantahay walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad mahadsantahay walaashay qaali in dhammaan walaalaha caawa nala caweynayay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin programkana nala daawanayseen insha Allah baan nagala socoteen in waa ururkii adkaynta qarannimada Somaliland Patriots Appeal khayr iyo barwaaqo intaynu ku kulmi doono programkan oo kala ah waxaan idinkaga tagaynaa salaamta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh